kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Wacaal Tube fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelka subscribe saar oo fura gambaleelka si ay kugu soo gaaraan warbixinadeena ugu dambeeyay maanta waxaan eegi doonaa dhinaca Bollywood-ka waxaana idin haynaa wiil iyo aabihiis ka soo wada muuqan doona shaashada iyagoo ku midoobi doona filimka Baahi 3 ma jirto akhbaar ka saameyn badan in rugcadda Jackie Shroff iyo wiilkiisa xidiga ah ee Tiger Shroff markii ugu horeysay shaashada ka soo wada muuqdaan wuxuuna JK aqbalay in filimka Baahi 3 uu door muhiim ah ku yeesho kadib markii uu kulan la qaatay soo saare Sajidnay Dadwala. Tiger Shroff ayaa filimka Baahi 3 ku matali doona Tiger Shroff iyo Ritesh Deshmukh aabahood waxaana la sheegay in Tiger Shroff uu duubista filimkan soo xaadiray Isniintii aan ka soo gudubnay sidoo kalena maanta oo Jimco ah duubistiisa uu soo idlayn doona filimka waxayna ku faraxsan yihiin taageerayaasha Tiger in markii ugu horeysay wiil iyo aabihiis shaashada ka soo wada muuqan doonaan filimka Baahi 3 waxa atariisho koowaad ka ah Shraddha Kapoor waxaana director ka ah Ahmed Khan qorshuhuna wuxuu yahay mashruucan weyn in la daawado 6 Maarso 2020 ayadoo la wada xusuusto labadii qaybood ee hore filimkan guulo lixaad inay gaareen Tiger Shroff sanadkii 2014 ayuu Bollywood-ka ku soo biiray wuxuuna sheegay in riyadiisu ugu weyn tahay mar uun aabihiis Jackie Shroff inuu shaashada kala soo muuqdo haatan riyadaasi lama filaan ah soo saare Sajidnay Dadwala ayaa u rumeeyay waliba Jackie filimka Baahi 3 aabihiis ayuu ku matalayaa waxayna wadaagi doonaan dareen qiiro leh intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixinta hadii ay tahay markii ugu horeysay channelka subscribe saar hadii aad ka heshay warbixinta like saar share gareey oo nagu soo biir adigoo maasan gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan warbixinadeena ugu dambeeyay halkani waa Wacaal Tube.